لله بانكو أهايو لله إيمان نقول آدمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أهلي بان أنا علي أكون مقعدين اللي على يوتيوب كداون يسون واللي على توفيشيا إن شاء الله هرتا هذا ما سنتين سيدا إلى سعتين وين كي جمع العلاية سيدا يجي عشرين إن كبر أنا جرو وين جعلان سيدا إلى سعتين سبسكرايب لايك شير كومنت إنت أسمع هذا أبودين هذا قبل الكرك أسكتها سيدا كوكو صدق وما سنت لحوق عاشقة كملنا من اللابتن كوها يا ويلي عبد الحكيم وحيد اللي مقعيقه وعبد الحكيم وحاكم وراها ودنك صوت أفريقيا ولا وحا يسمر وقت آدم معان أني والله صاوي قبل أن اسكو حافظ أهين وقت أن جوغ الصوماليا وحان وذا سعني قبل ناسي 3 سنة 3 سنة وحا إيلمد أهين 3 سنة أن أدونك وقفر حد ضلنا قبل مركان كسر تجي ودنك الصوماليا وحان وذا قلنا أحدي أو أها إن مرنا ميدكيس أو قف داوعين أني وسيدا اسكو أيا وحان إما ضبكاس يكون في أفريقيا ولا ليانا وركا كوكو دايرينين قبل مركان كسر دايرادي waxaan ku arkay nolol aad u macaan aniga ma aan ka dhigin qof aan jeclahay oo kaliya waxaan ka dhigtay ooridayda xalaasha anigoo la gaaray inaan isguursano nolosheeda intaan farxad gelin karo ayaan farxad geliyay waxa jiray in ay reerkooda ahaayeen reer iska danyara waxaan isku dayay in aan reerka dhinacooda aan ka dabaro inta karaankayga ah ayadan aan ka dabaro xagga iyo waxbarashada 2018 bishii koowaad waxay bilowday jaamacadda waxaan dhahay aniga ayaan dabarayo waxaasi oo dhan ee jaamacadaas ku dadaal oo kaliya sidaas anagoo ah ayaan waxaa la gaaray in ay imaadaan xoogaa isdabamarayn waxa igu tiri abuu bishaan waxaan rabaa inaan isbitaal ka shaqeeyo marka jaamacad ma aadayo aniga waxaan ku dhahay maxaad u shaqaynaysaa waxa igu tiri abaayo ayaa jaamacad dhammaynayso ma hayno wax aan ku dabarno jaamacadda ay dhammaynayso lacago fara badan ayaa la iska rabaa macaane waxaan dhahay waa meeqo waxa igu tiri waa $1,000 waxaan dhahay iska daa aniga oo markaasi yaabay ayaan ku dhahay okay aniga haaf ayaan dhiibayaa inta kalena dabara markaasi ayay dhahday waan shaqo galayaa aboowe okay ayaan ku dhahay ilaa waa meesha la iga soo raacayo aniga ma ogeyn meeshaasi waxaa la isku bartay qof kale sida aan warar badan aan ku maqlay waxaan go'aansaday in aan weydiiyo wararkaasi waxa igu dhahday ma jiraan waan aaminay laakiin 2018 bishii December waa maalin aan galay xanuunka calool qabsinka markaasi waxaa galay qalin caloosha ah aniga waxaan diriyay laptop wax ku baranayso markuu xanuunkaasi qabanayay waxaan waayay gabadhii ilaa waa gabar diyaarsatay meel kale qofkii aan u sameynayay asxaanka ogeyd waxay go'aansatay in ay meel cillaha iga dhaqaaqdo waxaan arkay 2018 November 20keedii waxaa la isoo sheegay in ay gashay aroos gaaban waxaan igu bariyay waagii waan ka naxay waayo waxaan aaminsanaa in ay tahay xaaskayga waxaan ku dhumiyay maalkaygii iyo dhididkaygii intaan familkayga ka fikirin waxaan ka fikiri jiray ayada xaggeeda waxaan arkay inaan haysan jacayl daacad ii ah laakiin aniga ma diidani in ay raacdo min kale balse dhagarta ay ii geysatay waxay baaqi ku ahaan doontaa qalbigayga khiyaanada igu dhacday waxay ii ahaan doontaa cashir lama iloobaan ii ah lii walaal waxaan kaa codsanayaa inaad iga gaarsiiso inta jacaylka qadarisa jacaylku waa ku noolnahay laakiin khiyaanada waa hagar ama dibindaabyo ay maleegayaan hablaheena Soomaaliyeed gabadha sidaas ii khiyaantay hadda waa xaas la qabo waxaan u rajaynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban waan ku ducaynayaa waayo waxaad bartay in aanan shakhsi dumar ah ku kalsoonaan waan ku xasuusnaan doonaa waayo waxaad bartay inaan isku kalsoonaado oo aan noqdo qof ka bartay jacaylka isoo maray cashir lama iloobaan ah waan ku jeclahay mar walbana waan ku xasuusan doonaa wallahi horta aad ugu xumahay saaxiibkay Cabdi Xakiim wax ku dhacay kasaad xanuun badan ayaa ku dhacday lacagtiisii dhididkiisii waqtigiisii dhamaanba uu ku dhumiyay saas ay tahay horta mid jirto waxay tahay annaga haddii aan ragnahay oo dadka xoogaa iska dhaqan dumarka Soomaaliyeed waxay u geystaan dhacaasi oo ah xitaa mid aan laga soo kaban karin way ku dhacayaan wayna ka tagayaan
laakiin annaga waxaa waaye gabdhaha dhac uma geysan mararka qaar saa rag u nahaba waan ka dheeraana xoogaa balaaya iska dhignaa saas ay tahay laakiin dib damba ugu soo laabanaa qof micnaha waqtigaaga kugu dhimiye maalkaaga kugu dhimiyena si aad ugu tagto way adag tahay haddii runta laga hadlo gabdhaha Soomaaliyeedna badankood saas u badan yihiin ninka ragga inay dhuuqaan ee ragga sii socdaan laakiin anaga rag haddii aan nahay haddii gabar micnaha ayna caawiso mase nolosheena kor ay u qaado lagama yaabo in micnaha si adag aan uga tagno waan ku dhageynaa waan ku adkaana because qof nolosheeda ka fikiray oo nolosheeda kor u qaaday micnaha saa ugu tagay way ila adag tahay laakiin gabdhaha xaggooda way la fudud tahay taasna aad uga xumahay qisadaan waxaa idin soo warinay anigoo Liibaan Aadan Cali ah waxaa idin rajeynayaa horumar wacan sidaas iyo nabadgelyo lama amaanay